Cefalexin waa daawo antibiyootig ah oo qayb ka ah group loo yaqaan cephalosporins. Ugu horreyn, daawadan bukaanka markuu qaadanayo waxaa la rabaa inuu la cabo galaas biyo oo bar ah. Kiniinigana lama rabo in la jajabiyo ama la calaajiyo. Sidoo kale waxaa fiican daawadani inuu bukaanka qaato asagoo calooshiisa maran tahay ama markaas aan wax cunin. Sidoo kale waxaa la rabaa in bukaanku uu daawada qaato waqti go'an si uusan u iloobin qaadashada daawada. Muddada uu bukaanka daawada qaadanayana waxay ku xiran tahay xanuunkiisu intuu leeyahay. Bukaanka waxaa lagula taliyaa inuu dhameysto daawada xitaa haddii calaamadaha xanuunka ay ka dhamaadeen. Astaamaha xanuunka oo dhamaaday macnaheedu maaha in bakteeriyada ay ciribtirantay ama ay dabar go'day. Bal aan u gudubna daawadan maxaa loo qaataa mise maxaa lagu daweeyaa? Daawadan waxaa lagu daweeyaa infectionka ku dhaca afka iyo dhuunta. Waxaa kaloo lagu daweeyaa infectionka ku dhaca habdhiska hawo-mareenka hoose sida oof-wareenka. Sidoo kale waxaa lagu daweeyaa infectionka habdhiska kaadi-mareenka iyo infectionka maqaarka. Bal aan ka hadalno qiyaasta daawada ee la qaadanayo ee la rabo bukaanka inuu qaato. Qiyaasta daawada ee inta jeer uu bukaanka daawada qaadanayo waxay ku xiran tahay xanuunkiisa. Tusaale qofka adultiga ah 250 mg ilaa 500 mg oo 4 waqti ah buu qaadan karaa, 3 waqti buu qaadan karaa. It depends on the severity of the infection we are dealing with. Ama waxay ku xiran tahay xanuunka markaas bukaanka laga daweynayo inta uu leeyahay. Aan ka hadalno saameynta daawadan ama side effect-ga ay leedahay. Saameynta daawadan waxa ugu badan shuban oo wax ka badan 10% waxay dareemaan shuban markay ay daawadan qaadanayaan bukaanada. Saameynta kale waxaa kamid ah calool xanuun, dawaqaad, madax xanuun, daal, qandha iyo in ay bukaanka nabarro ka soo baxaan. Daawadani waxaa si taxadar ah loo siiyaa bukaanada qaba kaliya xanuunka iyo beer xanuunka. Subscribe to my YouTube channel, follow me on TikTok.